ninkaanaad u jeediin macallin jiim waaye birtaan inuu qaado rabaa mana qaadi karo gabadhan horteedana inuu ku fashilmo ma rabo kadib gabadhii intuu u yimaado wuxuu ku dhahaa birtaan culayskii ka badatay qof adduunka ku nool oo qaadi karana ma laha waxaa imaanaya marka nin jiimka u qaabilsanaya qaybta tirtiridda wuxuu ku dhahaa iga raali noqda birtaan waa iska leexinaa meesha inaad tirtiraa rabaa birtii dhammeedna hal gacan ku qaadaa gabadhaana magaceeda Jessica waaye waxay la yaabantaa ninkan xooggiisa iyo hal gacan sidoo birta ugu qaaday macallinkana Jessica wuxuu ku dhahaa shalaa muruqa wax iga soo gaarin sidaas birta u qaadi waayay iyadana ninkii ku isagana ninkii maskiinka intuu u yimaado ku qaylina wuxuu ku dhahaa maxaan uga qasay marka tababarka ku jirno midkaana magaciisa Mike waaye wuxuu dhahaa iga raali noqo laakiin waxaan u maleynaa inaad rabtid inaad birta meesheeda kuugu soo celiyo Mike-na kadib markii lagu qaylqayliyo meeshii isaga tagaa Jessica-na macallinka waxay ku dhahay ninka maskiinka inuu ka xoog badan yahay ma u burisay macallinkana hadalkaas markii lagu dhahay intuu xanaaqo wuxuu ka daba imaanaa ninkii maskiinka wuxuuna ku dhahaa hadda soo bax waxaa la kala ogaanaa qofka xoog badan labadeena waxaa ii soo dhiibtaa gacantaada adigoo isboobsiinayo sidoo kale Jessica maysan ka harin meeshaan ka daawanay macallinkiina isagoo laga badin raba gacantiisana dhulka la dhigi rabo ninkii maskiinka ah qiyaama intuu qayliyo wuxuu dhahaa indhahaada soo wax maadan ku arkin ninkan waa ka badiyay Mike-na wuxuu dhahaa waxaada qiyaamo waaye sababtoo ah lugta haraati iga dhufatay asxaabay waxaa jira dad muuqaaladan qaato Facebook-na iska soo dhigto sidaas darteed Facebook-ana sameeyay Axmed Qolif ay ku qoran tahay ee follow iga soo dhaha Jessica waxay ogaanay inuu macallinka qiyaamo sameeyay kadib meeshii isaga tagay xogaa kadib macallinka wuxuu soo galaa qolka shaqaalayaasha wuxuuna arkaa meesha ay ku jiraan dharka kuwa meelaha tirtiro kadib dharkii intuu soo gashto wuxuu soo galaa qolka ay gabdhaha dharka isaga bedelaan Jessica-na iyada aan dareeminay musqusha sii galay macallinkana ninkii maskiinka ah oo Mike lagu magacaabayo dharkiisa wuxuu soo gashtay inuu baxareeyo rabaa kadib Jessica intuu musqusha ka fiiriyo la hadlaa iyadana si fiican muu arkayso laakiin waxay arkay dharkiisa iyadoo xanaaqsan intay soo baxday waxay soo aaday dhinaca ninka jiimka iskale waxayna ku dhahay ninka meelaha ku tirtira musqusha iigu imaaday macallinkiina intuu soo ordo